السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصوماليات وادن سلامي من ربط عالم كجوكتان عاو waxaan jeclaystay in aad ila wadaago barnaamij ku saabsan ama talooyin caafimaad ee ku saabsan COVID-19ka. Okay, COVID-19 hadaba sidee looga hortagaa ama loo gaashaantaa inuu kugu dhaco cudurkaasi alla kugu makeene. Marka hore waa muhiim inaad isticmaashaa face maskaha afka lagu xirto. qodobka labaad waa muhiim inaad idila isticmaashaa gloveska gacmaha la gashto. Soomaalida badankeedu waxay yaqaaniin oo kaliya inay isticmaalaan face maskaha. Face maskaha waa idan dambe u noqday wax lagu harkoodo laakiin uusan ahayn shay lagu harkoodo ee uu yahay shay caafimaad aan loo xirto. Okay, haddii aad xirato face maskaha oo kaliya COVID-ka ma kaga badbaadi doontaa waa meesha su'aasha taala. Taasi waa maya. Face maskaha oo kaliya COVID-ka kaama hor istaagayo inuu kugu dhaco. Waxa muhiim ah inaad isticmaasho gloveska gacmaha la gashto. haddii gacmahaaga uusan gloves kugu jirin ee afka oo kaliya face maskaha uu kugu xiran yahay waxa laga yaabaa in gacmahaagu ay meel badan taabtaan kadibna aad ku taabato afkaaga adigoo gacmahaaga jeermiski qaba marka uu maskahana ku xiran yahay marka Soomaalida waxa ay leeyahay face maskaha oo kaliya muhiim ma aha inaad isticmaasho waa muhiim inaad la isticmaasho gloves gacmaha lagu xirto. taas waa qodobbada looga hortago COVID-19ka. markii aad iska bixisid face gloves gacmaha la gashto gacmahaaga waa inaad u dhaqdaa alcohol ama jeermis dile. sidaas waxaad ugu nabadgelaysaa inuu kugu dhaco COVID-19ka. marka dhammaan asxaabta inta daawanaysa inta taqaana maqalkayga iyo muuqaalkayga dhammaan waa idin salaamayaa waxaan idin leeyahay habeen wanaagsan ka taxadara naftiina nafta ubadkiina nafta dariskiina iyo naftaadaba aad baad mahadsantihiin ha iloobin inaad isticmaashaan face maskaha iyo gloves gacmaha la gashto waad mahadsantihiin.